saddex siyaabood baa horta roobka loo kala dafaa. waa mide roobka mid in la beerto oo cidaas iskood u beeratay waa beer ayagoo leeyahay ayaga beertaan marka aad ma lahan. midna waxa weeyaan dad roob u di'i lahaa baa laga dafaa oo laga duufsadaa oo laga dhacaa. midna waxa weeyaan waa dadkaas waxa lagu sameeyaa qaab xadid ah ayagoon ogeyn baa laga xadaa. midna waa la xoog, midna waa xadid, midna waa xaalad beerasho. saddexdaas nooc bay kala yihiin. waxaana jira marka qaab kale oo ku dhex jira oo la dhaho climate modification wax la dhaho oo cimilada in la bedbedelo sidii raba laga dhigo, iyo markaas climate geoengineering waxa la dhaho iyadana oo qaab kale loo hindiseeyo. hababkaas baa marka jiraan oo lagu dhacdhacaa, waana wax cilmi ah oo jira. roobka sida loo abuurto waxa weeyaan iskuulka waxa lagu dhigaa koowaad iyo labaad baa lagu dhigaa adduunyada. annagu se ma naqaan meesha naga martay. sidaas ay tahay marka xaaladaasna waa tahay. laakiin weli waxaan u maleynayaa roobku hadda saddex qaybood baa sheegtay: mid la abuuro, mid xoog la isaga qaado, iyo mid la iska xado. anagu waxaan rabnaa midka xoogga la isaga qaado iyo mid kale iska xado. waxa weeyaan arrintaas marka waxay tahay waa arrin iska sahlan oo horta sideedaba roobka marka la beerayo macnaha qaabab loo beero laakiin qaybta beerista marka aan soo dhacnaan xadista aan ka hadalnaa deer. xadista la kala xadayo waxay tahay roobkii oo hawada jooga ama u soo socda Soomaaliya mesela marka u soo socdo badweynta Hindiya markuu roob soo marayo kale dad ba arkaya waa ka hortagayaan. markay ka hortagaan waxay sameynayaan roobkii meeshii uu ku abaarnaa oo Soomaaliya ahayd baa waxaa la qaadanayaa diyaarado oo helicopter qaar ah iyo kuwa kale oo yaryar iyo kuwa kale oo la fleet drone aircraft iyo fleet drone baa la qaadanayaa. marka la qaato roobkiiba oo san sidii ari socdo kala saa u socda baa gadaal laga gelayaa. markaasaa waxaa lagu sii deynayaa electric wax ah. electricaas oo sii deynaya waxyaalo oo kulayl iyo qabow isku dhex jira marka hore, marka dambena kulayl ka dhigaya. markaas qayb badinaysa oo electricaas oo badinaysa hawadii badinaysa. waxay sameynaysaa meesha ay ka di'i lahayd marka la joogo baa la didinayaa. diyaaradahaas gadaal laga gelinayaa, waa la didsanayaa daruurta. sida loo didinayo waxaa la sameynayaa markaas buur humaag ah, buur bug ah la abuurayaa. buurahaas oo bugta ah oo la sameeyo waxaa lagu xardhayaa cagaar iyo kanaalo beenbeena oo biyo beenbeena ah oo wiliq leh. markaas markay aragto daruurtu markay aragto qaabkaas markay aragto daruurta markay aragto buurtaas oo buur dihin ah ay aragto iyo dhul kacsan oo been oo humaaga loo abuurayaa, way soo raacaysaa. markay waxay noqonaysaa sida hal igar maqaarka loo xiray oo kaleeto. halkaasaa baana la soo didinayaa, waana buurtaasna way soo jiidanaysaa, way hagaysaa. si u wado meeshii la rabaa laga degsanayaa oo sidaas tartiib looga degsanayaa. wayna dhacdaayo wax maalin kasta Soomaaliya marka sanad walba almost sanad kasta way ku dhacdaa. مثلا marka waxaa jirta dawladaha dariska ah kamid ah. dawladaha adduunku way ilaashadaan horta hawadooda, way ka warqabaan, laakiin annaga kama warqabno hawadeena, annaga bataanadina haystaa. marka waxaa jira مثلا hal dawlad baa marka jirta oo xoogaa awooddaas leh. run ahaantiina dawladda saddexaad ee adduunka ugu badisa roob abuuradka iyo roob dhicidda iyo waxaan oo climate modification iyo climate engineering iyo waxaas oo dhan ku taf ah. dawladdaas marka waxay samaysaa meesheedii ka degsataa. tiro ka 3-4 jeer waxaa dhacday inuu daadad qaadeen ayagoo weligood aan dhulkooda roob ka di'inin, roob aan laga aqoonin. ama hadduu ka daana maartay adigu ku wareertay ahaa. markaas waxaa dhacday roobabkii inay daadad ay qaadeen ayaga sanadkii hadeer ahaa, sanadkii 2017 waana marka abaaraha ugu badan annaga ay nagu dhacayeen. ayagana daad baa qaadayay, ayaguna roob caan kuma ahayn ee buurahooda gubtay. annagana waxaan roob baan caan ku ahayn. meelihii Soomaaliya waxaa jiray hadda 60-70 sano ka hor
baraf kabdo la xiran jiray dadku kabday huwan jireen barafna oo soo dhici jiray dhaday iska dhihi jireen waa dhul barafa waa gaalkacyo agagaarkeeda ilaa iyo hobyo iyo halkaas baraf baa ka di'i jiray waxaa dhacday marka dhulkii noocaas ahaa waxaa ka dhacday hadda sanadkii 2017 marka taas nagu dhacaysay waxaa magaalada Camaaro la dhaho iyo Baxdo iyo waxaa lagu arkay daruur inta soo degta dhul ku soo degtay haddana hal kala fuqi weyday baa loo arkay xunba noqon weyday xataa marka waxaa sababayay marka roobkan la didsanayay oo la dhacayay baa waxa kimikooyin badan baa la isticmaalayay kimikooyinkii baa markaas roobkaas ka dhigay mid inta biyihii laga miirtay qolofkii halkaa lagu soo tuuray ama asagu soo dhacay kadibna dadkii waa cudurro badan iyo xoolihii dadkii oo ku dhaceen qaabkaas oo dhan baa jira horta oo saas loo dhacaa dawladdaasi maalan annaga keliya ma ahan waxay ka soo dhacdaa waddamo kaleeto oo la og yahay waxaa jira waddan kale oo ku dhow oo Asia ka mid ah badda hoostiisa ayay kanaal ka samaysteen oo webi ku soo daadfura kuwaas Pakistan webi ku soo daadfura inay hoosta inta ka galeen ay biyo soo urursadaan oo waddankood ka tagsadaan beerana ku fashaan taa marka dacwo ahaan ka sokow horta waa qaab ammaan ah oo waddan maantay anagii derisna la dhaqanna la dadna la inay heerkaas gaaraan horta waa sharafba annaga laakiin ceeb bay noo tahay inaan xataa inay jirto garan weyno marka qaabka wax la iska dhacayana Soomaaliya waa saas sheegtay khayraadka badda waa la dhacaa waa caadi khayraadka bariga waa la dhacaa khayraadka hawadana waa la dhacaa roobka waa la dhacaa dadka maskaxdoodana waa la dhacaa diintana waa nala ka dhacay inta waa nala ka dhacay waa runta caadiga ah waa tahay Dr. Qaasim marka hadda abaarahan sanad walba soo noqdo waxaad leedahay roobkii Soomaaliya sidii xoolihii baa loo didiyay ha saas ay dhacda oo macnaha aan hadda kaliya ahayn markii ugu horeysay waddankaas aan sheegayo horta ay bilaabeen arrimahaas waxay ahayd 2014 bay bilaabeen 2016 annaga waa nagu bilaabatay ilaa horumar baa la sii gaaray kabadibna hadda waaba nakaasaaba waa naxaaratay sidaasaan ku jirnaa qaababkaas marka kimikooyinka waxaa ka daran roobka la dhaco waxaa ka daran kimikooyinka nagu soo daata oo ilaan korkayga shaqo lagu qabsanayaa sababtana maxay tahay marka kor annaga naloo beegsanayo waa mid wadamada kale wadanka dhulkooda iyo hawadooda atmosphere-ka waxa ku jira iyo stratosphere-ka waxa ku jira oo dhan way u jeedaan laakiin annaga uma jeedno mana garan karno marka maxay sameynayaan ayaga hawadooda atmosphere-keeda meesha ku dhamaado iyo meesha daruuruhu ku samaysmalayaan iyo waa dhul lama degaan ah sida uu dhulku lama degaan u yahay iyo carro cirkooduna lama degaan u yahay beer aysan ka bixi karin oo dhul aan la abuuran karin yahay oo qoyanayn waayo waxaa la rabaa meeshii dhulka inay jirto macnaha dabayl xayayaabo qabow ah inay jirto oo wax abuuri kartaa oo markaas marka isku aruuri karto badan kartaa taasi dhulkooda kama dhici karto waa ka adag tahay inay ku dhacdo waxaa jirta marka inay dhulku meesha ugu dhow ay ka soo aruursadaan oo ay meeshooda keensadaan taas baa nagu dhacda kimikooyinka marka ay isticmaalaan oo ay maartay caanka ah baa waxa kamid ah oo baalaan abuura waxa la yiraahdo marka ugu horeysaba horta marka la sameynayo hawada la qaabqaabaynayo waxa la isticmaalaa waxa la dhaho carbon oxide iyo waxa la yiraahdo silver iodide labadaas la sameeyaa labadaas marka silver iodide kaas lagu sameeyo afwan waxa abuurmaya waxa la dhaho cumulus cloud waxaas hawada noocaas oo marka ay hawo waxa la abuurayaa yara adag dabayl isxajisata isu tintimaada la abuurayaa taas markii la abuuro baa marka waxa la isticmaalaa sida didsiga iyo badsiga loo sameeyo labadaba ayaa waxa la sameeyaa qaabab oo kimikooyin lagu darayo kimikooyinkaas lagu darayo marka waxa kamid ah oo iska caadi ah waxa la dhaho potassium baa kamid ah chloride baa kamid ah sodium fluoride baa kamid ah waxa kamid ah magnesium waxa kamid ah phosphorus fluoride
iyo fluoride kale noocyo kale oo badan baa ku jira oo saa ku abuurmaya oo halkaa lagu samaynayaa. marka lagu sameeyo meeshaas shaqo badan baa ka dhacday. shaqadii badneed oo ka dhacday wixii soo daata waxay noqonayaan sun kimika ah, waxayna ku soo dhacaan annagay nagu soo dhacaan. roob warkiis daa waa laga dhacay, laakiin haddana sun baa beddelkeedii ku imaanaysaa. halkaas bay tahay. qaabkaasna oo waxaa loo samaynayo waxay tahay daruuraha baa waxaa jirta marka oo macnihii maalan daruurta la abuurayo, meesha ugu weyn oo waxaa laga bartayna horta waa qur'aanka. waxaa laga yaabaa qof inuu ku fikirayo oo ilaahay baa yir waa cilmi qayb, waa saa ilaahay keliya roobka saan ku tahay, ilaahay baa roobka keena, laakiin waxaa loo marayaa maxay tahay dariiqadii asbaabta keenaysay, asbaabtii baa la samaynayaa. marka roobka xataa waxaa keliya laga baran karaa intaadan iskuul xataa aadinin aayado badan oo qur'aan sheegaya. waxaa ka mid ah ilaahay qur-aankiisa markuu ku yiri siduu ku halaagay qowm caadiya markuu noo sheegayay, waxa uu yiri riixin sarsarin caatiyatin sakharaha calayhim 7 layaalin wa 8 ayaamin. marka maxay tahay? waa riixin, waa weeyaan dabayl sarsarin oo qaylinaysa, cod abuuraysa, caatiyatin oo haddana adag oo isku soo dhegaysa. markaas taasaa waxaa weeyaan ay ku jireen 7 cisho keliya. intay markaas daruurahaas ay qabsadeen dadkaas waa dhammaadeen. waxaa weeyaan meesha iyagoo qolfaha la arkay. maxaa keenaya markaas? waa kimika daruuraha dhexdooda ka abuurmaysa halkaas. marka sarsarin la leeyahay waa marka ay abuurayso onkodka oo kaleeto, marka inta iscurjiyaan laba dabaylood ama laba dabaylood oo aan is-aqoonin oo markaa is arkeen isku dhacaan oo jig isa siiyaan baa marka shilkaas halkaas ka dhacay waxa uu abuurayaa in ay maxay tahay ay cod abuuraan. codkaas isliska ah oo abuurmay baa marka sarsarinkaas ah. caatiyatinta haddana marka macnihi waa iyadoo adkaatay oo heerka waxay gaartay condensationka la dhaho ayay markaas gaartay. waxaa u dhiman heerka la dhaho precipitationka oo soo di'iddu markay boosdalkeed meesheedii la joogo baa marka raggaani kaxaysanayaan, waayo aqoonteedii bay intaa leeyihiin oo iyo qalabkeedii intaasoo dhan saasay marka ay u dhacaysaa. waana marka waxaas qur-aankana si saxa u waafaqsan. xataa heerarkan ay soo marmarayso oo dhan ayaan aayad qur-aana oo sheegaysa suuraddan baaba racdiga ka hadashaba. ma jiraan dad aqoon-yahano ah oo arrintan aad kala hadashay oo runtii kula challenge gareeyey? xoolahay horta maaragtay dad badan way og yihiin, dad badan oo aqoon-yahanaha maaragtay wax way dareemayaan, wayna aniga markay maqlaanna way garowsanayaan. marka laakiin dad hadda aniga iyo ayaga aan ka munaaqashoonay oo ka hadalnay weli ma jiraan, sababtoo ah qof walba tiisa haysata. soomaaliyana macnaha cillad weyn bay leedahay oo ah qofku aqoon ma leeyahay. waxa weeyaan kan aqoonta la dil sida cabdulqaadir xirsi yamyam uu ku gabyay oo kaleeto, kan aqoonta la dil, kan wax baray dil, wax uu baray dil, ilaa aqoonta dil ay gaarto eryasaasa. marka halkaasaan joognaayo annaga hadda aqoonba nolooma ogola. marka taas dhibkaasaa jira horta kow. tan kaleeto macnihii xataa haddii wixii laga wada hadlo oo wadaaddo iyo kuwa diin yaqaana iyo kuwa maadi yaqaana intay isu yimaadaan ka hadlaan waxbaa la isu kenkeeni lahaa. oo tusaale hadda aayaddaas aan ku sheegay oo kaleeto baa wax weyn laga fahmi karaa. waxaa kaloo aayad suuratu racdi oo dhan laga fahmayaa aayadaheeda badankeeda hadii la aqriyo. waxay kaloo aad u muhiima heerarkaas hadda aan soo sheegay oo kaleeto, heerarka iyaga ah aayadda si fiican u wada sheegaysa ee qur-aanka ee suuratu racdi ku jirta waxay tahay acuudu billaahi min ashaydaani arajiim bismi illaahi araxmaani araxiim huwa aladii yuriikum albarqa khawfan wadamacan wayunshi'u asaxaaba athiqaala ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب به من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. إلهي مركو انتاس آياداس وحو كشيغيا waxaa jira ilaahay waa kan idin abuuray maaragtay wuxuu idin tusinayaa barqiga oo macnaha roobka hilaac weyn tusinayaa hilaac weeyaan. markaas wuxuu idin hilaacaas cabsi iyo rajo labadaba waad ka qabtaan.
dhanna waxaad leediin armu birqdu nagu dhacdaa dhanna waxaad leediin armu daadna qaadaa dhanna haddana waxaad leediin arman waa ku barwaaqoobaynaa ilaahay wuxuu leeyahay wayunshi'u saxaaba thiqaala wuxuu oo abuuraa horta